السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله ليال إن شاء الله تعالى ما إنه بالعام دونته محاضرة دي قدام بيسي المعتبر كني كوبي طبناد محاضرة إن شاء الله تعالى عوان كيد وحويه تطاركة قيبتي تضباط وحا إنه سوتشيدنا يا شيخنا شيخ مصطفى حاج إسماعيل هارون وليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. waxaan bilaabaynaa dariskii toddobaad ee ku saabsiisan tataarka. waxaynu hore uga soo warrannay taariikhdii tataarka qaybtii ku saabsiisnayd addowla alkhawarzimiya iyo sidii ay u jabiyeen ee uga guulaysteen. waxaynu kaloo soo marray dowla alcabaasiya iyo sidii ay u jabiyeen. waxaan kaloo soo marray addowla alayuubiya fadla naamusa. waxaynu hore uga soo warannay dowladihii ama dowladdii ballaadhnayd ee tataarka iyo dhibaatooyinkii ay u geysatay dowladdii islaamiga ahaa iyo siday u soo jebisay. waxaynu soo gaadhnay markaa 3 dowladood oo waaweyn oo ka mida dowladihii muslimiinta ahaa oo minjayna dacalkiisa ilaa iyo ghaza magaalada falastiin maanta ee ghaza ee la ysku haysto ilaa halkaasuu tataarku soo gaadhay. intaa wuxuu jebiyey markaa 3dii dowladoodii ugu waaweynaa ee meesha ka jiray oo ah khilaafa alcabaasiya, xagga shishana ay ka sii xigto addowla alkhawarzimiya, dhanka sokana ay ka xigto addowla alayuubiya iyo wixii ka hadhay. waxaa la soo gaadhay markaa inaan ka warramo qaybihii ugu dambeeyey dagaalada koowaad oo ku saabsan duwalkii mamaaligta la odhan jiray. mamaaligtu waa dowlad masar ka dhalatay dabeetana ballaadhatay. dowladdaasi inta badan taariikhyahanada muslimiintii wax badan kama warramaan, waana laga yaabaa sababo badan inay jirto oo ay ka mid tahay siduu doctor raghib asarjani tilmaamayo casrigoodii oo tiro badatay dowladaha yaryar ee muslimiinta ahi oo qofka taariikhyahankaa ay ku dhib badan tahay inuu cusuurtaasi si fiican uga wada warrami karo. bale wuxuu tilmaamayaa maalan raghib asarjani wuxuu leeyahay almamaalik albaxriya, mamaaligta inta badan 2 qaybood baa loo qaybiyaa. dowladdii mamaaligta la odhan jiray 270 sannadood wax ku dhadhow bay talinaysay. qaybta hore waxaa la yidhaahdaa almamaalik albaxriya, waa qaybtooda labaadna waxaa la yidhahaa almamaalik alburjiya. waxaan rajaynayaa inay 50 sultaan wax dhaafay lahaayeen marka taariikhdaasi 200 iyo intaasaa la tilmaamo. qaybtan hore ee la yidhaahda almamaalik albaxriya waxa uu leeyahay doctor raghib asarjani waxay telinayeen 144 sannadood, laakiin waxaan rajaynayaa taarikhyahanada kale inay ku tilmaamaan 130 inay tahay, 136 meelaha taasaanay u dhowdahay. 648 bay bilaabmeen
koodii ugu dambeeyey wiilkii yaraa ee xaaji shacbaan la odhan jiray 684kii ayaa kursiga laga riixay. dowladda almamaalik albaxriya la yidhaahdo ee 136 sannadood talinaysay, raaqib isirjaani wuxuu odhanaya ilaa 29 baa soo maray madaxa, laakiin taariikhyahano kaloo badani waxay tilmaamayaan inay 27 ahaayeen. haddii shajaratu dur islaantii maamulka bilowday haddii lagu daranayana boqorad laga dhigana waa 28 bay noqonayaan. 29 ama 28 madaxda ah, raaqib isirjaani wuxuu leeyahay 22 ka mid ah 12 waa la 10 waa la dilay, 12 waa la casilay. that means 22 nin oo madaxda ka mid ah ayaa 10 waa la dilay, 12 waa la casilay. xataa dowladdii ka dambaysay almamaalik alburjiya kama fiicnayn iyaguba, waayo waxaad odhan kartaa 9 ka mid inkastoo ay wakhti dheer taliyeen oo 130 sannadood ku dhodhow, haddana 16 ka midi 9 sannadood bay xukumeen. 9 sano gudaheeda ayaa 16 sultaan isbedeleen. dowlat almamaalik maadaama salaatiinteeduna tiro badan tahay, taariikhyahanadu inta badan wax badan inaanay ka sheegin bay u badan tahay. mustashriqiinta iyagu maba jeclo oo dee nimankani 2 qarni ama 3 qarni wakhti ku dhodhow ayay labadii quwadood ee wakhtigaa muslimiinta ugu dhibta badnaaba hortaagnaayeen. dowladdan mamaaligta la yidhahdaa maxay kaga gedisantahay duwalkii aynu hore u soo marray? waxyaabo badan bay kaga gedisan yihiin. waa dowlad askareed, casaakir sooma maqashaan? waa dowlad askariyeed oo xoog lagu kala qaado madaxnimada, oo waxaanan sheegayo dhamee dil iyo madaxdoo la iska casilaydani waa inqilaabaad bay ku wada dhaceen. waa inqilaab caskari. marka inqilaabka ama waa la dilaya kan hore, ama waa la khalcinayo xabsigaa loo diraya, ama waa la reebayay. siday ku bilaabmeen waxaan jeclay intaanan ka warramin dagaaladii ugu adkaa ay la galeen tataarka. waa nimankii jabiyey horta tataar. goobtii koowaad ee dib looga soo celiyo waa halkii ay iyagu ku hakiyeen, waqcatu cayni jaaluud. tataar dib hore uguma socon, intii dambaa markaa la ysku haystay iyo wixii dhib ka dhacay. nimankaasi tataarka soo jabiyey, haddaan taariikhdooda dib ugu noqonno, waayo waqcadda ka warrankeedu wuxuu ku xidhay inaynu duruufta fahmno. duruufta inaynu fahmnaana waxay keensanaysaa deriskeenna maanta oo dhamm inuu muqadamo u bato. deriskan maanta ka warramay oo dhamm inuu muqadama lihaada ilwaqca noqdo. muqadamadani maxay ku saabsiisantahy? dowla alayuubiya horeynu usoo sheegnay 80 sannadood bay talinayeen. salaaxaddiin alayuubi 20 sannadood ayuu isagu noolaayoo maamulayay. markuu geeriyooday wuxuu ka tegay dowlad aad u ballaadhan oo masar iyo shaam iyo xijaas iyo yaman iyo libiya qayb ka mid ah iyo noobiyiinta, dhul aad u ballaadhan dowlad islaam oo ka talinaysu salaaxaddiin ka tegey. isla markaana uu xoreeyey bayt almaqdis. laakiin isagaa gadaashay raggii yimi, madaxnimadii baa la ysku dilay, waa la isinqilaabay, waa la kala riixday. 60 sannadood bay ayuubiyiintu gudahooda isdilayeen. ayuubiyiintaa 60ka sane isdilayey waxay u bateen inaanay xataa wax kastoo ay soo adeegsan karaan inay soo adeegsadaan. oo ayuubiyiinta qaybo ka mid ah waxay soo kaxaysteen crusadeskii ama dowladihii masiixiga ahaa ee muslimiinta la dagaalamayey ayay qaarkood soo taageersadeen, oo iyaga iyo kristan iyo muslim wada socdaa ku wada duulayay dowlad yaroo kaloo muslima. 60kaa sannadoodee dambe 10kii u dambeeyaan wax ka tilmaamno. markaa laga soo bilaabo 637kii masar dowladdeedii waxaa qabsaday ninkii la odhan jiray almelik الصaalix najmaddiin ayuub. almelik الصaalix najmaddiin ayuub oo ay taariikhyahanadu ku tiriyaan inuu ka mid yahay dadyowgii ugu fadli badnaa bacda salaaxaddiin dowla ayuubiya wixii soo maray. ninkan iyo nimankii ay isku reerka ahaayeen ee iyana shaam iyo meelaha kale ka talinayay, falastiin qaybo ka mid iyo dhulkaa ka talinayay, waxaa dhex maray dagaallo waxoogaaya.
iyo 41 markay taariikhdu marayso yacni 4 sano ama 5 sano meelaha markuu xukunka haystay kadib ayay ayuubiyiintii shaam deganaa isu tageen dabeetana nasaarada ama kristanka qayb ka midana taxaaluf bay la samaysteen waxay ku heshiiyeen in lagu wada duulo masar oo masar la qabsado oo boqorkaas la yidhaahdo najmudiin ayuub dowladda laga rido muqaabilkeedana nimanka nasaareed in la siiyo bayt almaqdis inay qaataan bayt almaqdis baanu ka tanaasulaynaa laakiin masar nala qabta bay lagu heshiiyey ninka la yidhaahdo najmudiin ayuub wuxuu isku dayay inuu isdifaaco ciidankiisa oo wato nimankii ugu caansanaa mamaaligta oo la yidhaahdo ruknadiin bebrs alqaa'id ruknadiin bebrs albunduqdaariy ninka la odhan jiray uu hogaaminayo ayay dagaal wada galeen isagoo ninkaasi la socda maadaama ciidankiisu yaraana wuxuu isku dayey inuu adeegsado ciidamo culammada qaarkood ay ku yidhaahdaan murtasiqa bay ahaayeen mercenaries calooshooda u shaqaysayaal qoladan calooshooda u shaqaysayaasha lagu sheegayaa waa dowla alkhawaarzimiya dowladdii xoogga badnayd ee markii horeba tataarka daandaansatay ee muddada ay tataarka isdilayeen ee beriga fog ka talinaysay dowladdaa ciidamadeedii jabay qaybo ka mid ah firdhadkii soo galay masar iyo shaam iyo meelaha kan laakiin waa niman janannaa casaakira xirfad caskareed leh xirfaddoodii caskariyeed bay ku baac mushtareeyeen markaa ninka najmudiin oo ayuubiyiintii kale reer shaam iyo ay isu soo bahaysteen nimankii kristanka ahaa ee bayt almaqdis loo ballan qaaday wuxuu dareemay in laga xoog badan yahay dabeetana wuxuu adeegsaday nimankaa murtasiqada buu ciidankiisi ku soo darsaday 642 hijriyada ayaa waxaa dhacay mowqaca loo yaqaano mowqacatu ghaza oo labadaa xilfi wadaag najmudiin oo murtasiqada ayuubiyiinta murtasiqadaasi khawaarzimiyiintaana wata askartaasi calooshooda shaqshaqeeshta iyo ciidankii nasaarada iyo ayuubiyiinta oo wada socdaa dagaalkaa ku kulmay dagaalkaasi alqaa'id bibrus si xooggan buu uga guulaystay xulafadiina waa la jebiyey xulafadaa jabkooda taariikhahan meeshan aan ku sheegi doono oo dhammi kuma dhaadhacayo waayo maaha inaynu ghasawaadkan ka warranno ee waa mamaaligtu say u samaysantuun inaan taariikh muujisa ka tilmaamo dagaalkaa jebintuu jebiyey waxaa la yidhaahdaa ilaa 30,000 oo askari buu ka dilay niman badan oo madaxa oo umaradii kristanka iyo kuwii muslimkaba lena gacanta lagaga dhigay xulafadaana xoog baa loo jebiyey wuxuu u arkay najmudiin inay fursad tahay maadaama uu madax badanna qabqabtay oo ayuubiyiin iyo kristanba ka mid ah ciidankoodiina in badan uu ka laayay oo 30,000 oo askari ciidan gaadhaya uu ka takhallusay wuxuu u arkay inay fursad tahay dabeetana inuu bayt almaqdis xoreeyo oo shaam qabsado oo kuba dara buu u arkay awalatiisa duulimaad lagu ahaa wuu soo socday wuxuu xoreeyey bayt almaqdis 643 hijriyada ayuu xoreeyey maalintaas siduu u xoreeyey gacanta gaalada waxay dib ugu noqotay 1917 November 16 ciidanka ingiriisku markuu galay iyadoo weliba ay yidhaahdaan sababta ku galay waxay ahayd bay qaarkood sheegaan khiyaano macruufa uu sameeyey mustafa kamal ataturki turkiga ka talinaya dowla alcilmaaniya dhisi doona dagaalkii koowaadune dunida ayaa gaal dambe oo cagaa soo geliyey ugu xigtay siduu u xoreeyey ninkaasi loo yaqaano najmudiin ayuub 643 hijriyada wuu sii waday magaalooyin dhulkana iminka haysato israa'iil ka mid ah waa casqalaan iyo magaalo tabariya la yidhaahdo dhulkaas buu xoreeyey isagoo meel fiican marinaya ayaa maadaama ciidamada la socda ay niman murtasiqo ahaayeen niman calooshooda oo shaqaystayaala ahaayeen umaradii ayuubiyiintan qolo ka mid ah ayaa lacag ka badan lacagtuu odaygani siinaya u ballan qaaday
dabeetana dagaalkii bay kaga baxeen kadibna isagaabay ka hor yimaadeenoo way la dagaalameen halkaas waqacadaa wixii ka dambeeyey waxaa bilaabmatay waxaan aynu hadda ku soconno ee ah nimanka mamaaligta la yidhaahdaa sidii ay ku yimaadeen natiijadii dagaalkaasi waxay noqotay najmudiin almeliki saalix najmudiin ayuub inuu qaato fikrada ah ciidan dambe oo murtasiqo calooshoodu shaqaystaayana inaanu kaxaysanin ee ciidan walaaga daacad isaga waa inuu helo ciidan lacagta daacad u ah inaanay ciidan noqonayn buu arkay kadib wuxuu bilaabay halkii khawaarzimiyiinta inuu ku bedelo niman la yidhaahda mamaaliik su-aashu waxa weeyaan haddaba man hum lmamaaliik waxaynu ka warrami doonnaa dowlad mamaaliikii hogaaminaya oo tataarka jebiyey fikradday ku timina waa tatan maxaa la yidhaahdaa markaa mamaaligta aslu luga alcarabiya mamaaliik waa jamcu mamluuk mamluukuna waa raqiiq ama cabd waa addoon siiba addoonka isaga addoonnimo isaga lasoo qabsaday ee aan aabbihii iyo hooyadii addoommo ahaan jirin ka aabbihii iyo hooyadii iyagoo addoonnimada ku dhashay kaa qin baa la yidhaahdaa cabdigaasi waa fuqahadu kan ay qinka ku tilmaamaan amaa kan isagaa la addoonsaday oo addoonsiga dagaallo lagu soo qabsaday aabbihii iyo hooyadii may ahayn laakiin taariikhda islaamiga ah erayga af carabigee guud ma aha ee mamaaliik haddaad maqasho inta badan taariikhda islaamiga waxay ku caanbaxeen niman asalkoodu addoomma ahaa oo ciidamada la qorto ciidamo marka dambe u noqdo dowladda tan kuwaasaa mamaaliik erayga la yidhaahdo ku caanbaxay goormay bilaabmeen wakhtigan may bilaabmin ka hor bay bilaabmeen imaamu tabari raxmat ullaahi calayh wuxuu soo aroorinayaa fii taariikhi wuxuu ku soo aroorinayaa ciddii ugu horraysay ee adeegsata ciidan addoommo ah inay ahayd wakhtigii dowla alumawiya siiba nasar ibnu sayaar ninkii la odhan jiray markuu talinayey waa waaligii khuraasaan waa eeraan waqooyigeeda afghanistaan waqooyigeeda ilaa taajikista meelahaasi intaa waaligii ama govarnarkii ama barasaabkii uga talinayey dowla alumawiya oo nasar ibnu sayaar la yidhaahdo ayaa ahaa bay dhahdeen ninkii ugu horraysay mamaalig qorta oo 1,000 askari oo mamluuk u qortay dabeetana ciidan buu hubbuu siiyey ciidan uu ku dagaalgaluu noqday laakiin aakhirkii isaga iyo ciidankiisiiba waa la jebiyey dowla alcabaasiya wakhtigeedii siiba wakhtigii ay telinayeen labadii nin ee midna ma'muun loo odhan jiray midna muctasim loo odhan jiray oo ah 198 ilaa 227 ayay labadaa nin ee walaalaha ay telinayeen nimankaasaa waxay bilaabeen inay askar badan qortaan waayo cahdigii dowla alcabaasiya waxay bilaabeen laba qowmiyadood inay dowladnimada ka fogeeyaan nimanka carbeed iyo nimanka beersheeniska ah labadaa dowladoodba inay dowladnimada ka fogeeyaan si aan xukunka iyaga cidi ugu soo hungurayn maadaama ay labadan bulshood rabeen inay ciidannimada ka fogeeyaan waa inay keensadaan ciidamo kale oo markaa dowladdii muslimiinta ahayd ciidan u noqota waxay bilaabeen inay guutooyin askar ah oo addoommahaasi suuqa baac mushtarka laga soo iibsado inay soo ururiyaan siba almuctasim bilaahigaasi waxay dhahdaan ciidamadiisa addoommaha dhowr iyo 10 kun bay gaadheen bale baqdaad markay qaadi weydeen dadkiiba ay suuqyada ku cidhiidhiyeen ayuu wuxuu u sameeyey magaalo caan ah oo isaga iyo ciidankiisuna ay degaan waa magaalada la yidhahdo sura man ra'a yacni magaaladan asamraa iminka la yidhahdo ee ciraaq ku taalla ee baqdaad u dhow asalka magaaladan waxaa loo sameeyey ciidankaas in la dejiyo waa qalcaadkii iyo meeshii uu dejiyey ciidankan isna boqortooyadiisii buu rartay meeshaasuu degay waxay u noqotay markaa ciidamadiisii oo atraak u badan qowmiyaddan turkiga la yidhaahdo oo uu isidhi aad dowladnimada kaga xoray sida carabtan iyo maxaa beershiyaankan iyo dadkan laakiin nasiib darra isna muu xorayn karine
labaatan sannadood kadib markay ciidankii qabsadeen iyo jannanadii iyo wixii boqorradiiba waxay noqdeen lucbo gacantooda ku jira mid ay dilaan iyo mid ay casilaan bay iyana ka dhigeen aakhirkoodii oo siiba mutawakil markay dileen 247 wixii ka dambeeyey mamaaligtu wakhtigaa markaa laga soo bilaabo iyo wixii ka dambeeyey waxay noqdeen ciidan cusub oo ku soo biiray dowladihii muslimiinta ah duwal ila taabika maqashaan fulana taabika taabik ataabigtani waa ata iyo bik la isku daray labadan eray ee af turkiga ah ata waa bimacna alab bay yidhahdeen walmurabbi bikuna isaguna waxay ku tilmaamaan inuu yahay alamiir yacni waa dhasha umarada dadkii tababarayay ataabigtaasi waa nimanka taariikhda caanka ku ah ee markii dambe duwal ilatraaf xukumay ragga taqaaniin xataa dowla ayuubiya raggay ka soo bilaabatay cimaadadiin zinki iyo nimankaasi duwal ilataabik bay ahaayeen markaan soo duuduubo ciidankan mamaaligta la yidhaahda oo intooda ugu badan waxaa laga keenay meeshan la yidhaha maa waraa'i nahr nahru jiixoon aynu hore usoo tilmaamnay waa webiga kala qaybiya dhanna turkmanistan iyo afghanistan dhanka kalena taajik iyo uzbekistan webiga dhex mara waxaa ka dambeeyay taariikhyahanadu maa waraa'a nahr ku tilmaami jireen halkaas baa laga keeni jiray cunsurkan turkiga la yidhaahdo atractani cunsurkaasi meeshay degaanka u lahaayeen waa meeshaa waana manطaqo dagaalku ku badnaa bay ahayd dad gaalo u badan samraqanda iyo farqaana iyo khawaarzim iyo magaalooyinka muslimiinta baa la keeni jiray waa la kala gadan jiray saalix alayuub ninkan aynu rabno ee ciidanka cusub samaystay muxuu soo kordhiyey isagu wuxuu bilaabay fikradaha hore ka gedisan oo ah inaanu nin weyn askari qoranin wuxuu bilaabay isagu inuu carruurta iibsado carruurta yaryare suuqaa lagu iibinayo inuu soo gato carruurtaa markuu soo gatana inuu u tababarto ciidamada ama dadkii la iibin jiray waagaa ugu badnaa horta dad asalkoodu turkiya ugu badnaa inkastoo laga helayay armeniyiin kuwa ah mongolians laftooda kuwa ah iyo yurubtan indhaa buluugale qaar ahba saqaalibada nimankii la odhan jiray yurubtan bari dee intaa waa laga xoog batay muslimiintu dhulkay qabsadeen bay ka mid ahayd waa la kala gadan jiray iyagana waxaasoo dhan oo la isku daro ayaa waxay noqdeen cunsurka ugu badan ee caddaanka ah ee addoomaha dadku iminka markaad addoon maqasho nin madoobay ka fekeraan addoomuhu berigaa nin cad bay ahaan jireen aad buu u yaraa addoon madoobi tira aad u yar bay ahaayeen cunsurkaasi wuxuu bilaabay markaa boqorka kani isagu inaanu gadanin ilaa kuwa yaryare carruurta ah mooyaane siiba dadaan muslimiin ahayn laakiin maadaama tataarkii dhul badanoo muslimiina ay qabsadeen oo carruur yaryaroo tiro badan leh ay gadeen dadkaa la kala gadanaya qaarkood waxaa iskaga jiray dad muslimiin ay dhaleen oo carruur yaryaroo muslima laakiin aan af carabiya waxaana ku hadal aabayaashood iyo dadkoodiina dadkii la laayay ay ka mid yihiin ninkani wuxuu bilaabay markaa kuliyaad caskariya oo cusub inuu samaysto oo lagu tababaro ciidamadiisaa yaryar ciidamadani waa carruurta tan inta aanay sinulbuluuq gaadhin qaangaadh inta aanay noqonin kow waxay yidhaahdaan waxaa loo dhigaa af carabiga markay bartaan baa waxaa la baraa qur'aanka markay bartaan baa waxaa la baraa mabaadi' alfiqhi alislaami waalaadaab sharciya fiqiga muslimiinta iyo adabka sharciga ah inta ay yaryar yihiin waxaa aad loogu ilaaliyaa salaadda inay si fiican u tukadaan adkaarta sharciga ah inay qaybaan ninka mu'adibka ama mucallinkee taraingaraynaya hadduu khata yar ku arko wuxuu isku dayaa inuu tambiihiyo ilaa xad ciqaabaadka qaarkooda la mariyo carruurtaasi waxay kortaa markaa iyagoo carruur yaryar oo muslimiina oo islaamka jecel oo aqoon badan oo fiqiyana wata oo agtooda culammada iyo cilmigu ku weyn yahay waa culammada qaar baa waxay idhahdaan waa sababihi casrulmamaaliik ay u soo baxeen culammada maanta ugu caansan dunida alafdaadka taqaaniin waa cusurtii mamaaligta raggii wax bartay yaa ka mid ah imaamu nawowi ibnu taymiya ibnu اlqayim ibnu jamaaca imaamu dahabi ibnu kaiir almaqrizi culamadan caanka ee taarikhdaa ku taqaaniin waa casri اlmamaaliik
casrigii nimanka ka nahda cilmiya baa faaftay baa la yidhaahdaa ibnu qudaama almaqdasi waxaasoo dhamme waa casri lmamaalik raggii noolaa saalix alayuubi markuu dadkan uu diinta iyo af carabiga waxan baro ee ay soo gaadhaan qaangaadhka ayaa waxaa bilaabmata alkuliya alcaskariya markaas waxaa loo bilaabaa in la baro dagaalanka qaabka loo dagaalamo iyo askarinimo rasmiya iyo funuunta dagaalka ee kala nooca ah fardafuulka gamuunka ridistiisa seefta iyo ku dagaalankeeda mahaaraadka caskariga oo dhan baa markaa loo bilaabaa 3 shay baa la baraa marka kanna qaab dagaaleedka iyo sida loo dagaalamo iyo riyaada alquwa albadaniya iyo jidhka in loo dhiso iyo in la baro adkaysiga iyo mashaaqa iyo dhibta inuu adkaysan karaan yacni waxaa lagu yaqaanaa askari ayay galaan kuliyadda caskariga ee askarinimada loo tarengareeyey markay dhammaystaan darajo 3aad baa la geeyaa haddana darajada tan waa saraakiisha meesha laga soo saaro markay halkan soo gaadhaan waxaa la baraa umuur alqiyaada leadership maamul hogaamin iyo maamul iyo khudadka caskariga ee istraatiijiga sida loo dejiyo mushkilaadka waaweyn ee caskariga hadday ku qabsadaan iyo sida loo xallilo iyo umuurta adag oo dhan sida loola dhaqmo yacni marka kan waxaa laga dhigaa qaada inay noqdaan hogaamiyeyaal jananno iyo wixii u dhadhow inay soo baxaan asal markaa waxa u noqotay mamaaligtan aynu ka warrami doonnaa waa niman min carruurnimadoodii ilaa iyo jananno iyo umaro intay ka gaadhayeen tadriib ku filan la siiyey hadduu yahay mid diineed iyo hadduu yahay mid military iyo hadduu yahay mid maamul intaba waa rag soo qaatay xadkaa markay soo gaadhaan waxaa bilaabma nidaamu rutubkooda sida loo dallacsiinayo qaar firaq caskariya maamula oo dee xidigle labaale saddexle wixii yaryar noqda qaar kor loo qaado ilaa xad la gaadhsiiyo maxay rutbadda amiirka ay gaadhi karaan amiirku waa nin manطaqo dhan xukuma ama meel dhan xukuma waa dad maamul ahaan maamul haya dhaqaale ahaan iqtaaciyiin oo dhul dhan la siiyo mamaaligtan waxaa kaloo loola dhaqmay islaamku ma yaqaano waxa loo yaqaano tabaniga ilma aana dhalin inaad tidhahdo anaa dhalay ma yaqaano laakiin wuxuu yaqaanaa in qofka la kori karo isagoo magaciisa aan laga bedelin iyo wixiisa boqorradani siiba najmuddiin ayuub wuxuu la dhaqmay sidii carruurtiisa oo kale oo markuu raggan kuliyaadka ka soo saaray xero gaaruu dejiyey xeraduu dejiyey buu la degay meel la yidhaahdo jasiiratu rawda oo qaahiro ku taalla ayuu dejiyey webiga niilka dhexdiisa jasiirad yaro ku taalla halkaasuu qalcad uga dhisay isna gurigiisii boqortooyada halkuu u soo raray sida carruurtiisoo kale uu la dhaqmay xad bay yidhaahdaan uu cunnada la cuni jiray meeshay seexdaan jeegarayn jiray wax walba way iyana si dhabay u jeclaadeen oo nimankan suuqii nakhaasa iyagoo yaryar laga keenay suuqa dadka lagu iibiyaa laga keenay iyagoo yaryar haddana waxaa laga dhigay umaro iyo dee dad xawaashidii boqorka ka tirsan iyana markaas si fiican bay ula dhaqmeen boqortooyadoo aad bay u soo dhowaysay ciidankan mamaaligta la yidhaha marka hore saasuu ku samaysmay ninka la yidhaahdo najmuddiin 2 nin ayuu ciidamadiisa hogaamiyaal uga dhigay nin la odhan jiray farisudiin aqtaay iyo nin la yidhaahdo ruknuddiin bibris 2daa nin ayuu madax uga dhigtay halkan markay marayso intaanan weli gaadhin meeshii aan u socday muqadamadan waxoogaa ku daro luwis ataasic boqorkii la odhan jiray waxaa jiray yurub boqorradeeda wakhti ka mid ah ayaa boobabku aad u hungureeyeen dabeetana iyagu iyo boobabkooda wada socdaa waxaa la go'aansaday in muslimiinta lagu duulo xamlaad kala dambeeyey xamla saliibiya aluula alثaaniya alثaaliثa alraabica alkhaamisa alsaadisa alsaabica xamlaad taariikhda caanku ah crusaderska nimankan la yidhaahda weeyaan dagaalladii ay soo qaadeen dagaalladan yaa soo qaadayey boqorrada yurub richard kii la odhan jiray qalbulasad ee ingiriiska ka talin jiray philip augustus kii faransiiska ka taliyey maxaa la yidhaha frederica thanigii germany haysan jiray
bahamayo oo qubrus iyo sicily ka talin jiray dagaalkii shanaad ee ay soo qaadaan reer yurubka iyo crusadeska waxaa hogaaminayay boqorkii la odhan jiray luwiska sagaalaad ee faransiiska luwiska sagaalaad ee faransiisku wuxuu isku dayey inuu tataarka heshiis la galo in muslimiinta gamta loo joogsado laakiin waa innagii hore u soo sheegnay boqorka tataarku inaanu cidnaba agtiisa inuu ku arkay inaanu ogolayn dabeetana waxaabuu ka xanaaqay boqor yaroo reer yurub oo waraaqu soo dirayo oo iska dhigaya qof macnalobuu ka xanaaqay saa daraaddeed wuu diiday fikraddii sulxiga ahayd hase yeeshee boqorkii masar haystay ee najmuddiin xanuunka tiibayda la yidhaahdaa ku dhacay wuu xanuunsaday luwiis wuxuu maqlay intan kale ayuubiyintuna naf badan may lahayn ninkii ugu xooga badnaana inuu xanuunsanayo tataarkiina inay marayaanba baqhdaad qabsadeen iyo waxaasi oo dhan ka soo tallaabeen dabeete wuxuu is yidhi wallahi adna waad ka yara gaadhsiin karaysaaye masar iyo intaan iska sii qabso xamlad buu soo qaaday ilaa 700 oo doonyood buu soo kaxaystay ciidan xooggan oo qaarkood ay ku sheegaan 100 kun oo askari ciidan gaadhayuu soo kaxaystay wuxuu ku talagalay inuu masar gunta ka rojiyo wuxuu yimi meesha la yidhaahdo dimyat waa magaaladii ugu caansanayd markaa masaarida ee dekedda u ahayd ee baxrul abyadka ama mediterranean seaga ku soo jeeday dimyaad ciidanka inta leeg iyo waxani marun bay soo galeen waxoogaagii askartii iyo ciidankii joogay waaba ka baqeen waa uga yaaceen magaaladii buu iska qabsaday halkii buu degay waa xamladii 7aad ee saliibiyiinta markaa alxamla asaabica weeyaan markay qabsadeen meesha tan ayuu boqorkii masar ka talinayay markaa najmuddiin ayaa wuxuu go'aansaday inuu dagaalamo weliba inaan qaahiro loogu iman inuu ka hor tago laakiin dadka si uu dagaalgeliyo wuxuu go'aansaday isagoo buka oo jiifa oo sariirta saaran in la qaado frontka la geeyo isagana ciidamadiisii wuxuu amray inay baxaan meel dhexe madiinadan almansuur la yidhahdo almansuura halkaas buu ciidankiisii keeyey oo kollayba wuxuu garanayay webiga niil inuu soo raaci doono marka inaan qaahiro la isugu imana dhexda inuu dagaalku ka dhaco wuxuu amray in la qaado oo meeshaa la geeyo saraakiishiisii ciidanka watay waa 647 baan rajaynayaa inay tahay marka dimyaad la qabsaday safar 20keedii labadiisii sarkaal ee mamluuga ahaa ayaa ciidamadana wata farsudiin aqtaay nin la yidhaahdo iyo bebris ruknadiin albunduqdaariy nin la yidhaahdo labadaasaa nin wata waa 2 nin oo jananna ah oo dagaalyahano khatar ah iyadoo khitadii caskariga la dhigayo oo uu rabo inuu isdifaaco ayaa waxaa dhacday tii allah timi shacbaan 15keedii ayaaba geeridu u timi boqorkii waddanka maamulayay waa nin boqoroo saalixa buu habaa lagu tilmaamaa isagu waa ka ibnu taqarri bardi ayaa wuxuu leeyahay low lam yakun min masaaxin الsulطaan الsaalix najmuddiin ayuub إila tajalludah cinda muqaabalati اlcaduwi biاlmansuura wahuwa bitilka اlamraad almuzmina wamowtiha cala اljihaadi wاdabi can اlmuslimiina lakafaahu dalik ma kana asbarah waأغzara maru'atah wuxuu leeyahay ninkan adkaysigiisii iyo dagaalu jooggiisii uu muslimiinta isku dayay inuu dagaalgeliyo iyo sabarbadnidiisii ayaa ku filan buu tilmaamayaa ilaahay baa og inay ku filantahiyo in kale ninkani wuxuu ahaa nin saalixa say taarikhyahanadu ku tilmaamaan musiibadii mar quraa waxaa dhacday musiibada dadkii muslimiinta oo ah magaaladii horena in laga qabsaday dagaalkiina inuu mukadhadhow yahay geesh xooggan oo boqortooya wadataana inuu soo socdo boqorkii muslimiinta u talinayee dagaalka soo geliyeyna inuu dhintay weliba nasiib darrada joogtee kale markaasi say dadku u arkayaanna waxa weeyaan ciddii dhaxli lahayd ee boqortooyada qabsan lahaydna lama hayo boqorku markaa wuxuu qabaa gabadh shajaratu dur la yidhaahdo gabadha tani iyana waa mamluukad kale
waa turkiyadna dadka badh baa idhahaa dadka badhna armiiniyad bay ahaayeen baa la idhahaa waa gabadhuu suuqa ka soo iibsaday kadibna uu xoreeyey kadibna uu guursaday inan bay u dhashay inankiina wuu dhintay gabadhaa shajaratu dur oo mamluukadiyana ah ayuu qabaa la socota laakiin waxay ku sheegaan gabadha tani gabadh aad u caqli badan bay ahayd bay idhaahdaan waa iron womankii soo maray taariikhaha muslimiintay ka mid tahay gabadha tani waxay go'aansatay inaanay geerida boqorka sheegina ay qariso oo waxay tidhi dhakhaatiirtiibaa waxay u diidday in cidi u soo gasho amarkaasay bixisay dhakhaatiirtiisiibaa waxay amartay bay tidhi inaan cidi u soo gelin wiil uu dhalay ninka kani oo aanay isku fiicnaan jirin aabbihii aanay iskuba fiicnayn oo tuuraan shaah la yidhaahdo oo ka taliya magaalo yaroo xisnu kayfa la yidhaahdo xisnu kayfa waa magaalo turkiga koonfurta bariya turkiga ku taalla waa webigan dajlabaa mara ilaa hadda waa magaalo jirta xisnu kayfa meeshaa la yidhaahdo ayuu ninkani boqor yar ka ahayo ka talinayey kaasay farriin u dirtay ay leedahay aabbahaa dhimay kursigii boqortooyaduna wuu bannaanyey xaalad khatarana waa lagu jiraa dhaqso u kaalayo na soo gaadh waxay kaloo u yeedhay labadii janan ee ciidanka hoggaaminayey waxay ku tidhi war boqorkii dhimay dadkase in loo sheego diyaar uma yihi ninkaasaanu farriin diroo imanaya dadka ha la dagaalgeliyo dagaalka si fiican u maamula labadan jananna waxay qaateen bal wax waliba horta ha dhacaan inay dagaalka galaan oo aan dadku jabin sidii baa lagu heshiiyey waxaa dhacday waqacadda taariikhda muslimiinta caanka ku ah ee la yidhaahdo mowqacati almansuura magaalada mansuura la yidhahdo ee masar ku taalla ayay ka dhacday 4tii dilqacda 647 macraka xooggan baa dhex martay nimankii nasaarada ahaa iyo muslimiintii laakiin waxay ku guulaysteen bixawli illaahi wa quwatih inay jebiyaan ciidankii uu watay luwiis ataasic khaarij almansuura waa la jebiyey waxoogaa ciidamo boqorku nin ka soo horreeyey oo ay taarikhyahanada qaarkood yidhaahdaan guushuu rabay inuu keligii qaato luwiiska uu ka soo degdegay wax kasta ha noqoto tafaasiisha kama warramayo waa la jebiyey haddana 10 maalmood kadib bay haddana hujuum kale ku qaadeen luwiis hujuumkii kale wuu iska dhiciyey wuu soo celiyey halkaa markay marayso ayaa waxaa yimid towraan shaah xukumkii baa loo caleemo saaray dabeetana dadkii muslimiintana waxoogaa nasri horena waa heleen boqorkiina waa yimi waa ku farxeen dagaal cusub baa la takhdiidiyey waa dagaalada ugu waaweynaa ee muslimiintu galaan baa lagu tilmaamaa mid ka mid ah 2 bilood kadib madiina farskuur la yidhaahdo oo iyana masar ku taalla berigaa hore tuulo yar bay ahaan jirtay oo shaarix shaam yaa la yidhaha mise shaarix saam magacaynkaasi ay lahayd meeshaas ayaa dagaalkii kale ka dhacay dagaalkaa nimankii masiixiyiinta ahaa guntaa laga jaray ilaa iyo boqorkii faransiiska waa la qabta boqorka laftiisaa gacanta lagu dhigay kadibna shuruud adag ayuu ku xidhay boqorka wuxuu yidhi waan ku sii daynaya boqorkii waa la soo qabtay ra-iisul wasaarihii ama wasiirkii ugu weynaa gurigiisa fakhrudiin ibraahim baa lagu xidhay kadibna heshiis baa lala galay heshiisku qodobo adag baa ku jira waxaa la yidhi 800,000 oo diinaar oo dahaba ayaad bixinaysaa 800,000 oo diinaar ee dahabka ah nusna haddaad kaash u dhigaysaa nusna wakhti soo socdaad bixinaysaa waxaa kaloo intaa la socda wax allaaliya wixii aa maxaabiis hore u qabsateen ee muslimiina dufcada hore aa lacagta bixinaysaan baa ku soo daraysaana waa la soo daynaya waxa intaa kaloo la socda wax allaaliya wixii aan maxaabiis kaa qabannayna waa haynaynaa ilaa iyo dufcada dambe lacagta qaybta dambe installmentka dambe ilaa wakhtigaa ka bixinaysaan maxaabiistiinnana waa la haynayaa
waxaa kaloo heshiiska ka mid ah 10 sannadoodoo soo socdana inaan wax dagaala la isku qaadin intii baa la aqbalay laakiin waa adduun aad u tiro badan 800 oo kun oo diinaar waxay u dhigmaan 3400 oo kiilo oo dahab ah yacni 1.4 tan waxay u dhigmaan wax ku dhodhow 3.4 tan waa 3 tan iyo badh wax ku dhodhow waxaa laga rabaa inay naqad hadda u bixiyaan 1.4 tan hal tan iyo badh wax ku dhodhow oo dahab ah oo naqada inay imika dhiibaan dee boqorkii baa xidhan kiristankii waa isu tagtageen intii waa la soo ururiyey waa la keenay luwisa taasic waa la sii daayey magaaladan caka la yidhaahdo oo imaarad masiixiyiina ayuu dib ugu noqday halkaa markay marayso tawraan ninkii la odhan jiray tawraan shaah marka kan xoog buu isbidaysnaa boqortooyadii buu qabsaday taarikhyahanada qaar waxay dhahdaan nin dabeecad xun buu ahaa siyaasaddana kuma fiicnayn lafteeda guushii uu boqorkii faransiiska ka guulaystay iyo boqortooyadii uu qabsaday ayuu dadkii la socday umuu aabba yeelin dadkii uu meesha ugu yimi kow islaantii boqoradda ahaa ee ku sintay meesha ee waxaasoo wanaagga u gashay wuxuu yidhi lacagtii aabbahay baad qarisay iminkadaa waa inaad soo saartaa hantidii aabbahay haddii kale waa kaa takhallusaya aad buu ugu hanjabay baa la yidhi nimankii guulahan waaweyn geystay ee casaakirta ahaa ee mamaaligta ahaana wuu iska ilduufiyey ama mas-uuliyaadkoodii buu wax ka qaadqaaday waxoogaa ciidana uu kala yimi xaggaasoo uu watay ayuu rutabkii sare iyo meelihii sare ku taxday waxaa bilaabmay in la kala shakiyo markaa nimankii mamaaligta ahaa way ka shakiyeen ninka kan iyo dhaqankuu wado islaanta lafteediina way shakiday dabeetana waaba la shiray waar maxaynu yeellaa waxaaba la go'aamiyey waar isaga laftiisa aan diloo ka takhallusan hayna dhaafee waxaa caana taariikh ilmamaaliik masaladan baynu sharxi doonnaa waa innagii soo tilmaamnay markaynu duuduub ahaan sheegaynay 10 ka midana in la dilay boqorradii mamaaligta saalixiyada weliba qura 12 ka midana in la inqilaabay nimankan agtooda dilku wuu ku fududa sababtu waxay doonta ha noqoto waa niman askarinimo ku soo koray dil iyo waxaan lagu treengareeyey waa dhan tarbiyada caskarigu waa tarbiya jaafa waa niman dilku wax badan la sii ahayn waa niman askarigu wuxuu yaqaanaa umuurta in la xasmiyo oo meesha hal la kala gooye diblomacy badan iyo siyaasad badan oo inta badan dadka lagu sii wadwado kuma fiicna waa niman haddana u arkay waxay dhahdaan mamaaligta taariikhdooda waxay caan ku noqdeen alqatlu bishaki aw binnawaaya mar hadduu cadow ninkuu yaro noqdo aad ka shakidana inaad ka takhallustaa inay ku habboon tahay waana niman dee min dhallinyaronimada carruurnimadoodiiba askarinimadan lagu bilaabay markaa ninku hadduu isagoo dhallinyaro askarinimada galo qaabkanoo ku weynaado caqliya caskaraba uu yeeshaa inta badan oo ah inuu wax walba xooggaas uu ku taliyo sanad fiqiya ama sharciya ma jiro sheegaya boqorka manaasib kaa qaaday ama kaasoo yaro horjeestay ama caynkan in lagu dilaa ma jiro laakiin waxay u arkeen inay ninkan ka takhallusaan go'aankaasay qaateen dabeetana ninkan odayga ah waa dileen waa laga takhallusay 7 maalmoodba kadib maalintii uu ka yimi xisnu kiifa showgeeridunbaa buu soo socday tala uma soconin 7 casho kadib isagana waxa lagu daray fii acdaadi almafquudiin waa la dilay weliba dilkiisu dil aad u adag buu ahaa waxay dhahdaan wuxuu dhintay jariixan hariiqan xariiqan bay dhahdaan aw maxruuqan
waxay sheegaan in la dilay nabarka warankay ku dhufteen wuu dhaawacmay markuu dhaawacmay buu ka cararay markaasuu minaarad fuulay minaaraddii bay dab ku shideen markaasuu ku gubtay bay yidhaahdeen wuu ka booday webiga niil buu isku tuuray markaasuu ku dhintay deeta waxay yidhaahdaan jariixan isagoo ah dhaawaca oo gubtay oo haftay buu dhintay bay yidhaahdaan kadibna meeshii baa loo tashaday maxaa la samaynayaa marka halkan waxaa ka bilaabantay war cusub labadii kooxood ee shajaratu dur iyo nimankii askarta ahaa way iswaafaqeen laakiin meeshii firaaq siyaasiya yimi maxaa la samaynaya waxay bilaabeen in dowlad cusub la dhiso oo weliba dowladdaasi ay islaamta madaxu noqoto waa fikrad aad u jadiida halkan dowlatulmamaalik baan markaa ka bilaabaynaa mamaaligtan taariikhda intii aynu naqaanee hore dowlado badan baa adeegsaday oo طولونيينta nimankii la odhan jiray oo dowla alkhshiidiya oo dowla alfaatimiya oo dowlaadka qaarkood 400 kun oo askari bay wateen khshiidiyiintii oo kale 400 kun oo askari oo mamluuka buu haystay xoraastiisoo quraa 8 kun ahaan jirtay laakiin dowladaha hore la yaqaanoo dhan mamaaligtu kursiga sare may hungurayn jireen kolba boqorkii meesha qabsada bay dee taageeri jireen hadda waxaabay isweydiiyeen war meeshan nin ayuubiyoo dhaxlayaa ma joogo kii yimina waatana waa laga takhallusay bal kursiga maynu inaguba isku dayna bay isweydiiyeen maxaaba uun maalinba nin boqora loo saaraya maynu inaguba meesha qabsanno shajaratu dur islaantan la yidhaahdaa waxay ahayd qof dumara bay yidhaahdaan oo geesiyada oo dhiiran oo caqli badan bay yidhaahdaan bay ahaan jirtay iyana xisaabaadkeedii waxay isugu geysatay oo weliba qiyaadada iyo xikmad badan ku leh oo waxaynu ka garan karnaaba fitradii uu ninkaasi maqnaa siday wax u sii maamushay waxaanay aragtay inay nimankan laftooda ay taageerayaan aan warkooda soo koobo habartaasi waxay qaadatay inay iyaduba boqorad noqoto nimankii mamaaligtina waxay isidhahdeen kolle islaanta hadhow way iska riixi karaysaane bal horta cadhadan hore ninkan loo qabayo waxaana kaga gudubteene meesha ha qabsato iyana waa taageereen mamaalik albaxriya oo taageersan ayay habartii iclaansatay inay waddanka madaxweyne ka tahay waa awal dowla islaamiya habare ay tidhaahdo madax baan ka ahay ee taariikhda hore islaamiga lagu soo maqlo dee adduunkan muu ahayne waa islaba rogtay qayladii baa badatay dabeetana magacyo badan bay la baxday waxaa caan ahaan jirtay boqorradu inay laqab la baxaan magac bay la bixi jireen waxay la baxday malikat almuslimiin alsaalixiya boqorraddii muslimiinta ee saalixiyada ahayd saalixadu waa almelika saalix najmuddiin bay u nisbo sheegaysa odageedii dhintay laakiin lama aqbalin markaasay haddana ka beddesho waxay tidhi malikat almuslimiin alsaalixiya waalidatu sulطaan khaliil amiir almu'miniin kii yaraaya ay dhashee dhintay ayay isna magaciisa meesha ku soo dartay haddana waxay aragtay baa la yidhi inaan la aqbalaynin markaasay haddana sii kordhisay waxay la baxday laqaba malikat almuslimiin almustacsimiya alsaalixiya waalidatu sulطaan khaliil amiir almu'miniin boqortooyadii islaamiga ahayd ee baqdaad ka jirtay waa intii aanay weli dhicin ayay u nisbo sheegato mustacsimi bay sheegatay anigu amiirad yaro meel haysataan ahaydee khaliifadii guud maygii bay rabtaa inay tidhaahdo laakiin warkaasi ma u eg yahay war ay aqbalayaan muslimiintii waagaasi noolay warkaa lama aqbalin mudaharaaddaa ku kacay magaaladii baa buuqu badatay markaasay istidhi yaanu dabaddu warka u bixin oo magaalooyinkii muslimiinta hore albaabo laga galay lahaan jireen albaabaday dadka ku xidho waxay istidhi bal tuulooyinka warkan iyuu gaadhin hala joojiyo laakiin wakhtiga kani ma ahayn wakhti dumar wax hungareeyo dee beriguu noolaa raggii ragga ahna u ahaa sulطaan alculamaa baa joogaa ciزadiin ibnu cabdisalaam ninkii la odhan jiray ee baayic ilmuluuk boqorrada iibiyey
sulطaan ibn alculamaa iyo rag la midaba manaabiirta u baxay dabeetana islaantii xaalkii wuu u sugmi waayey boqorkii ay isku magac dartay ee mustacsimkii haystay baqdaadna isna ma aqbalin habar baa madaxe ee waraaq buu soo diray waraaqda uu soo diray isaguna wuxuu ku soo qoray in kaanat الrijaalu qad cudimat cindakum faaclimuuna xataa nusayira ilaykum rajula masar buu yidhi reer masarow haddii meeshii nin rag laga waayey ii soo sheegaa nin idiin soo diree buu yidhi boqorkiina waraaqdaasuu soo diray taasi waxay abuurtay markaa inaanay u suurtagal ahayn islaantan inay wax xukunto haatan waxay qaadatay haddaba fikrad kale inay magaca ka daadegto laakiin ay xagga dambe wax ka maamusho waxay istidhi nimaad xukumi karto oo magac nineed wata laakiin xiniyo adigu aada u sido kaa meesha kaan ba istidhi oo un nimanka xoogga badan leh wax maamulo kuwa ka weeco waxay aqbashay markaa inay ka tanaasusho yay uga tanaasulaysaa nimaan caa'ilad xooggan lahayn ayuubiyiintiiyo waxaa maaha nin mamaaligtan ka tirsan weliba dee mamaaligtu isku mid maaha farasadiin aqطaa'i iyo bibris iyo ragay xukumi karto maaha jannanadii waaweynaaye meesha joogay markaa waxay damcday kuwaana inay ka weecato nimaan aad markaa caan u ahayn laakiin mamaalik albaxriya ka tirsan oo ciزadiin aybak la yidhaahdo oo asalkiisii horena jaashankiir buu ahaa jaashankiirku waa shaqo guriga qasriga laga qabto waa boqortooyada madaxda had iyo goor waxaa jira qolo cunadooda qaabilsan oo dhadhamiya si aan boqorkiiyo waxaan loo samey nimankan madaxdao dhan bahasha waa laga dhadhamiyaa iyagu ma bilaabaan mid baa jira soo dhadhamiyo haddii lagu sumoobayo isagu sumooba laakiin si aan madaxdu u sumoobin marka waagii hore shaqadan baabuu hayn jiray wuxuu ahaa jaashankiirkii madaxtooyada buu ahaan jiray ninkaasoo ayay istiri kan baad wadwadan kartaa dabeetana ciزadiin aybak bay guursatay waxaana yidhaahdaan wuxuu ka mid ahaa raggii aan ku caanbixin murannadii u dhaxeeyey jananadan iyo ciidamadan dowladda muramadoodii raggii aan gelin ee iska degan waana nin turkumani loo nisbeeyo turkumanigu dhalashadiisii maaha bay qaar yidhaahdaane waa wilaa nasaba wilaa cidqiya calaa kullin 80 maalmood kadib bay iscasishay dabeetana ninkan baa madax noqday jumaad alaakhira oo 648 ayaa waxaa madax laga dhigay dowladdii masar ciزadiin aybak ciزadiin aybak waa addoon la xoreeyey laftiisu laakiin dadkii waxay u arkeen waaruun hadday qofkan dumari meesha ka tagtay bal waa lagu sii meel gaadhi karaa baa loo arkay qoladan mamaaligta ahi laftoodu umay arag nin xooggane waxayse lahaayeen isaga laftiisa waa midaa iska weecin kartaa wakhtiga kan hal sano gudaheed bay masar markaa maraysaa 4 madaxweyne odaygii ayuubiga ahaa najmudiin ayaa dhintay inankiisii baa la dilay shajaratu dur baa la casilay ciزadiin aybak ba hadda kii afraada waa sanad gudihiiba 4 madaxweyne la maraya ciزadiin aybak laqab buu la baxay almuciz baycadii baa la siiyey shacabkiina waa aqbaleen isna wuxuu isku dayey inuu awraaqdiisa ratibto ciidamo cusub buu qortay mamaalik albaxri wixii ka soo raaci karayna wuu ku darsaday ciidamadiisa cusub nin dhallinyaro ah oo geesiyo cusub ayuu madax uga dhigay waa ninka la yidhaahdo markaa sayfadiin qutus ninka aynu u soconno inaynu taariikhdiisa ka warranno ee goobaha tataarka jebinaya waa wiilkan yar markaasi ee la soo dallacsiiyey ee uu ka dhigtay almuciz jananka ciidamadiisiiya uu u dhiibtay waa markii ugu horraysay taariikhda duhuuru ku yeesho ayuubiyiintii shaam joogay kumay qancin qadiyadda tan ee waxay isku dayeen masar innagaa iska lahayne waa maxay addoommahan iyo waxaan qabsaday iyo dumarkan isugu tegey aan ku duulla bay yidhaahdeen weerar bay soo qaadeen
ciisaddiin aybik laftiisaa ka hortegay meel zaqaaziiqda halkan la yidhaahdo meel u dhow alcabaasiya macraka la yidhaahdu la galay waa jebiyey boqorkii joogay baqhdaad baa soo hadlay heshiis baa laga dhex riday heshiiskaasi wuxuu noqday markaa falastiin in loogu daro ciisaddiin aybak khaliifadiina inuu ictiraafo marka ciisaddiin aybak hadda saxiixii boqortooyada ee muslimiinta khaliifadana wuu helay marka waa boqorkii rasmiga ee meesha laakiin taasi waxaanay u qurhqurhsamin shananadii isaga ka hooseeyey dee dowladdan guulaheeda keenay siiba ninkii la odhan jiray farisudiin aqtaay oo ciidankii markaa mamaalik albaxriya ninkii ugu sarreeyaya ninkaasi boqorkan maba ictiraafin alimaam almaqrisi fii kitaabi السلوك لمعرفة دول الملوك wuxuu leeyahay xaqiraad uu xaqirayo aybik wuxuu ka gaadhsiiyey buu yidhi inuu alqaabtiisaba ugu yeedho almuciz iyo melik iyo waxa uguma yeedhi jirine yaa aybak buu odhan jiray buu yidhi markuu u yeedhayo maxaad u malaynaysaa jananka ciidamadaada ama wasiiru difaacaago markuu u yeedhayo hebelow ku leh aan madaxweyne iyo waxba toona raacinaynin xaqiraad weliba daraaddeed aan saaxiibtinimo ahayn aybak wuxuu go'aansaday ciisaddiin aybak boqortooyadan sidii u xojin lahaa mamaaligta waxaynu nidhi takhalluska agtooda wax weyn kama ahayn wuxuu go'aamiyey markaa wixii ka soo horjeeda inuu ka takhalluso dabeetana janankii ciidamadiisa haystee farisudiin aqtaay la odhan jiray buu ka takhallusay markuu janankaasi dilay ayay habartiina shakiday waxay istiri wallaahi ninka farisudiin aqtaay kow kaga siiyey inaanu xukum iyo waxba toona kuu ogolaanaynin waa shakiday mamaalik albaxriya ninkii ugu weynaa markii la dilay jannanadii ku xigay waa baxsadeen ciidankii mamaaligta ee baxriga ahay wuu kala daatay qayb ka midoo badani waxay u carareen dowlal ayuubiya dhankeedii oo weliba ka mid yahay ninkii ninkan ku xigay ee bibris la odhan jiray ilaa dibishiq buu tegey mar kalea waxaa soo dhex galay boqortooyadii baqhdaad ka telinaysay oo isku dayday inay heshiisiiso waxaa ku heshiisiiyey mamaaligtan baxriga ee shakiday ama yaacday inuu falastiin dejiyo ghaza inuu dejiyo isaguna boqorkii meesha haystay inuu noqdo dagaaladan laga soo maamulayo dhanka kanna in laga daayo halkaa markay arrintu marayso oo ninkii uu meeshii xejistay ayuu damcay inuu sii xejisto si looba ictiraafo boqor ka mida boqorradii ayuubiyiinta ayuu xidhiidh la sameeyey waxaanu ka dalbaday inuu inantiisa siiyo waa ninkii la odhan jiray badrudiin lu'lu aynu inta badan soo marray muusil haysto oo aan nimanka fiican ka mid ahayn ee tataarka ku xidhaa buu ka mid ahaa kaasuu inantiisa dalbaday islaantii aynu xikmadda iyo caqliga badan ku sheegaynay markay arrintan maqashay caqligiiba wuu ka tego hinaasaa qaaday dabeetana waxay go'aansatay iyana inay ciisaddiin aybak disho wixii dhacayaaba ha dhacaane igan boqorka ee odaygeeda ah inay ka takhallusto ficlan waa sidii wax la heshiiye iska dhigtay waa u yimi ciidan bay meel ugu qarisay tafaasiil waxba geli maaye iyana isagii bay ka takhallustay ciisaddiin aybakna markaa waa la dilay meesha waxaa la soo dilay baynu idhi tawraan shaah waa la dilay shajaratu dur waa la casilay ciisaddiin aybak oo ka dambeeyey waa la dilay farisudiin aqtaay waa la soo dilay imikana ciisaddiin baa takhalluskiisii taagan yihi janankii ciidamadiisa sayfaddiin qutus ninkii la odhan jiray ayaa meeshii dib u qabsaday inan yarow ciisaddiin aybak dhalay oo cali la yidhaahdo wiil yaroon weli qaangaadhinba buu kursigii saaray habartiina wuu soo qabtay habartii waxaa lagu xukumay in la dilo taarikhyahanadu waxay dhahdaan malaa mamaaligta wakhtigoodii waa taqudha ee dilka xaq mudatay in la dilo laakiin ariiqaday u dileen baa iyana fool xumayd islaan kale oo uu qabay odaygan la dilay ciisaddiin aybak oo inankan iminka boqorka laga dhigay dhashay ayaa arrinkeedii lagu wareejiyey islaana walba ka hinaasasanayd oo boqorka ka qaaday
ayaa la yidhi la wareeg islaantaasaa la wareegtay iyana intay jaariyadihii u shaqaynaya hablihii u shaqaynaya isugu yeedho halka ku xidhxidhay ayay tidhi kab ku dila kabahan qaraafiicda la yidhaahdo kabaa jiray loox laga samayn jiro qabaabiib la yidhaahdo oo maas yarna dusha lagaga dhejin jiray looxa kuwaasaa loola baxay habartii shajaradurre ee cilmiga aqoonta badnayd iyo caqliga badnayd iyana kab qaraafiica lagu dilay sidii kabtaa loogu garaacayay sidii boqorkii aynu ku soo marray khaliifa alcabaasi haraatida ku dhintay say tataarku haraati ugu wadeen shajaratu durrina haraatidaasaa lagu dilay kabtaa looxaaya baa lagu dilay waa ariiqa nisyaaniya bay yidhaahdaan waa qaab aan runtii u cuntamin in qof bini aadama loo dilo laakiin saasay ku dhimatay arrinkii wuxuu marayaa markaa masar oo wiil yar uu madax ka yahay oo nuuraddiin cali la yidhaahdo gacantana uu ku hayo oo wasiy uu u yahay sayfaddiin qutus nin la yidhaahdo sayfaddiin qutus waxaynu odhan karnaa marka kan waa alxaakim alasliy ee maamula dowladda waddankan ka talinaysa waa alxaakim alasliyi dowladdan maamula waxa uu markaasi sameeyey inuu dejiyo dowladda tan qutus waa kuma haddaynu isweydiinno ninkani xagguu ka yimi isagu taarikhyahanada muslimiintu waxay isku waafaqsan yihiin taariikhda muslimiinta raggii soo maray ragga ugu waaweyn inuu ku jiro waxay yidhahdaan magiciisa dhabta ah maxmuud ibnu mamduud baa la yidhahdaa maxmuud binu mamduud baa la yidhaahdaa bay yidhaahdeen waa nin qoys boqortooyaa asalkiisu ka soo jeedo ninka kan waxaa la yidhaahdaa waxaa hooyadii dhalay boqorkii baxru qaswiin ku dhintay ee moxamed alkhawaarzimi ee dowladdii khawaarzimiinta la soo jebiyey ama waxaa abtigii iyo hooyadii la walaal tahay jalaaladdiin alkhawaarzimi ninkii tataarka afghanistaan labada jeer ku jebiyey ee kadib la soo kaceen ee sindi ka tallaabiyeen ee xagga iyo indiya orodka ku galay kaasaa abtigiiya kaas dadkii la socday buu ahaa isagoo yaroo carruurah kaa markii la jebiyey reerkiisi iyo wixii oo dhan waa la qabtay wixii la layn karayey way laayeen midhadh carruura iyo dad noocaasa addoonnimo loo kaxaystay wiilkan yari wuxuu ka mid ahaa dagaaladii markaa ka soo dhacay qaybtaasi dadkii addoonsiga loo soo kaxaystay akhiiran suuqii nakhaasa baa la geeyey suuqa dadka lagu kala iibsado waa la iibiyey gacanba gacan bay u soo dhiibtay iib buu dimashq ku soo galay dimashq baa haddana mid kale ka iibsaday waa la waday masar buu iib ku galay masar baa haddana waxaa iibsaday ciisaddiin aybik waa soo koriyey akhiiran jananka ciidankuu noqday ninka kani marka hore qoys boqortooyaabuu ka dhashay kadibna wuu jabay kadibna waa la addoonsaday bariga muslimiinta laga keenay isagoo addoonah masar baa addoonnimadii lagu keenay ilaahay qadartii kii unba haddana meesha dib u koray oo noqday markaa jananka ugu weyn ciidamada waddankan haysta qutus waxay yidhaahdaan waa nin koow guri boqortooyo ku koray abnaa'i almuluuki walumaraa walqaada waxay yidhaahdaan jaaniska inay qaadan noqdaan way ka tiro badantahay dadka caadigaa jaaniska inay qaadan noqdaan waa culammadan leadershipka iyo managementka ka warrantaasaa sheega waayo ninka kani guriga uu ku koray hadduu iyo guri wax laga maamulo inta badan kuwaasaa noqdaa dee duwalka maanta joogaba orod stuurdinkaa eeg ama wasaaradaha eeg ama caynkan eeg waa dad ku soo koray guryo maamul jaaniskoodu wuu ka badan inay maamul qabtaan dadka kale ee caadigaa jaaniska ay wax ku maamulaan ninkani waa gurigaa uu maruu ku soo koray marka koowaad marka labaad mamaaligtii masar lagu tababaray waa nin ka mid ah oo dowraadkaa diinigaa iyo kuwa caskarigaa iyo kuwa qiyaadigaaba soo maray waa nin askarinimo rasmiyana loo tababaray waa nin markaa kalsooni nafeed leh oo sida tana askari dhaba ah wuxuu ku tala galay inuu meesha tan dejiyo
hawraad baa waddanka ka bilaabmay kacdoomo ay ka mid yihiin shajaratu durri kuwii iyada la xisbiga ahaayee ka soo hadhay mamaaligtii baxsatay almamaalik albaxriya oo uu hogaaminaya nin la yidhaha sanjari alxalabi. sanjari alxalabi waa mamaalik albaxriya buu ka tirsan yahay. waxaanu rajaynayay ciisadiin ayba gadaashay inuu isagu madax noqdo, laakiin waatan wiilka yar la saaray. dabeetana dhaqdhaqaaq milatariya hawrad buu sameeyey. qutus baa qabtay oo wuu xidhay. wixii kale ee rabshado wadoo dhan wax carara iyo wax la xidhay bay noqdeen. mamaalik albaxriya waxoogaa ka soo hadhay qaybo ka midi dib bay u yaaceen. ayuubiyiintii nin ka mid ah oo muqiisudiin camar la yidhaahdo aynu hore u soo marray markaynu ka warramaynay dowla ayuubiya. waa kark meesha la yidhaahdo meel yaroo urdun ku taalluu madax ka ahaan jiray. waxay idhaahdaan nin hunguri badan, hunguri siyaasiyo weyn loo itaal yar buu haddana ahaa, ayaa waxaa qaaday hunguri ah war masar ayuubiyiintii waatan laga qaaday nimankan isdildilayaa qabsaday maad adiguba ku duushid mala waad qabsan karaysaaye. wuu soo duulay. 655kii waxaa ka hortegay sayfaddiin qudus ciidan uu hogaaminayo wuu jebiyey. mar labaad haddana rabiicu laakhar ayuu dib u soo duulay 556kii. marka labaadna waa la jebiyey. marka labaadee uu soo duulayo ma taqaanaa waa baqdaad intii la qabsaday 2 bilood kadib. yacnii siday u fakerayeen nimankan iyo maskaxdooda u qaldantay, iyadoo caasima khilaafa almuslimiin la qabsaday ayuu tataar kuma duulin ama wax iskama celine dowlad yaroo muslimiin oo meel kale ka jirtuu duulimaad u siiyey. 2 bilood kadib baqdaad oo la haysto 2 bilood oo madhatay ayuu xagga baqdaad uma jeeday, wuxuu u jeedaa inuu masar soo qabsado. laakiin markan kale haddana dib baa loo celiyo, waa la jebiyey. waxaa bilaabmay marka wiil yaroo masar haysta iyo ninka qutus la yidhaahdo ficlan taliyaa rasmigaa ah iyo holaag oo dagaalkii soo wada oo shaam iyo dhulkaa inteeda badan soo qabsaday oo markaa xalab maraya. halkaa markuu marayo ayuu wuxuu u arkay qutus inay arrintu khatar tahay oo 3 dhibaataba ay waddanka ka jiraan. tataarkii oo soo socda iyo mamaalik albaxriya oo hawraad wada oo gudaha casaakirtii rasmiga ee dowladdu lahayd oo inqilaabba isku daydeeya, iyo ayuubiyiintii iyo shaam oo mar walba soo socda oo soo dagaalgelaya. wuxuu arkay meeshu inay u baahan tahay maamul rasmiya, inanka yarina inaanu wax maamulaynin. markaa kadib bay yidhaahdaan markuu rag badan la tashaday wuxuu go'aansaday wiilkan yarna ee magacuyaalkaana inuu meesha ka duwo, dabeetana uu meesha si rasmiya u qabsado. sayfaddiin qutus 24kii dilqacda 657kii ayuu markaasi masar qabsaday. markuu masar qabsaday wuxuu bilaabay dagaal ah inuu u diyaargaroobo tataar sidii uu u jebin lahaa. caqligan yare hoose inqilaabaadkan iyo waxaana sidii looga bixi lahaa, inuu musaalaxa raadiyo, ayuubiyiinta la heshiiyo, mamaalik albaxriya la heshiiyo, siyaasa alkhaarijiya waddanka uu dhiso. maxaa la yidhaahdaa xataa kristankii haystay tuulooyinka tirada badan leh ee dagaalladan soo qaaday inuu la heshiiyo, inuu isku dayo dagaalkiisa inuu ku wajaho tataar waxa dadka ka soo hadhay ama kristan ha ahaadaan ama muslim ha ahaadaan, si kastoo loo col yahay inuu heshiisye la geli doono. waxaan isku dayi doonnaa markaa dariska dambe inaan ka bilowno tataarkii oo duulimaadkoodii soo wada iyo qutus oo qabsaday magaalada masar iyo dagaalkii caynu jaaluud siduu ugu diyaar garoobay. maantana aan halkaas kaga joojiyo. wasalaamu calaykum waraxmat ullah.